Soo dhawaada saaxiibayaal mar kale isku soo noqod wanaagsan. Maanta waxaan idin wadaa taxanaad xiiso badan oo layidhi Avatar The Last Airbender. Inta muuqaalkeena gudaha ogol waxaan ku xasuusin sidii caadigan oo muuqaalka loo nodgareyso janaakan subscribe hore subscribe ku in aad iyo aad baa u maasan tahay. Sheekada taxanaha waxay ka dhacaysaa adduunka leh halkaasoo ay ku nool yihiin 4 qaran, mid walbana wuxuu leeyahay awood gaar ah. Qaar ka mid ah kuwa hawada xukuma Airbenders waa kuwa awood leh inay hawada maamulaan, kuwa labaad oo kuwa dabka xukuma Firebenders oo meel kastaba ka abuuri kara dab. Waxaa kaloo jira kuwa biyaha xukuma Waterbenders iyo kuwa ugu dambeeya kuwa dhulka xukuma Earthbenders oo awood leh inay gacanta ku dhigaan dhulka iyo ciidda. Qalooyinka awood uma leh inay isdagaalaan si sahlan, dagaalka kama dhici karo adduunka si fudud. Waxaa loo baahan yahay Avatar qof leh awoodda 4 curiye, awoodda hawada, biyaha, dabka iyo dhulka. Waxaa la ogaaday in Firebenders ay doonayaan in adduunka ay qabsadaan, sidaa darteed waxay bilaabeen inay dilaan dhammaan dadka leh xukuma curiyaasha kale. Avatar Aang ayaa joojin lahaa dagaalkani, wuxuuna markaas ahaa wiil Airbender ah. Macalinkiisii wuxuu bilaabay inuu baro sida hawada loo xukumo, laakiin Aang weli ma uusan garanin inuu yahay Avatar. Taasi ayaa keentay in Airbenderyadii kale ay ku xanaaqaan macalinkiisii, waxayna u sheegeen Aang sida ugu dhaqsiyaha badan tababarka ay Avatar u baro, maadaama Firebenders ay ku soo socdaan dhulkooda si ay u burburiyaan. Macalinkii ayaa Aang u sheegay runta waqtigeedii kuna yidhi waa inaad tababarka dhammaysaa si aad uga hortagto dembiyada Firebenders. Laakiin Aang wuxuu tawala jir mana qaadi karin mas'uuliyaddaasina wuxuuna aad uga baqayay. Wuxuuna yidhi ma rabo inaan noqdo Avatar. Isigoo qalbi jabsan ayuu la hadlay xayawaankiisii, wuxuuna la duulay si uu naftiisii u dejiyo. Laakiin Firebenders ayaa soo weeraray halkii inta uu maqnaa, waxayna burburiyeen dhammaan macbadka Airbenderska, waxayna dileen macalinkiisii iyo dhammaan dadka Airbenderska ahaa. Aang oo keli ayaa badbaaday, wuxuu ka baxay magaalada isigoo la socda xayawaankiisii, balse waxay ku dhacayaan biyaha markii dabayl xoog leh soo dhacdo. Kahor intuusan quusan waxaa soo kacay awooddiisii Avatar-ka ahayd, iftiin xoog leh ayaa ka soo baxay madaxiisa. Dibna sheekadu waxay u boodaysaa 100 sano kadib. Waxaa aragnaa buur baraf leh aad u qurux badan, iftiin xoog leh ka soo baxaya. Waxaa ka soo baxay Aang wuxuuna joogaa dhulka Waterbenders, halkaasoo Katara iyo walaalkeedii ku tababaranayaan. Markay arkeen dhacdadaasi way naxeen, waxayna u qaadeen Aang macbudkooda. Bixitaankiisii waxaa arkay Prince Zuko oo ka tirsanaa Firebenders kana shaqeynaya inuu helo Avatar-ga. Markuu Aang miyir yeeshay wuxuuna u sheegay dadka Waterbenders wixii dhacay, weerarkii dadkii safarkiisii sida ugu yimid. Islaantii weyneed Waterbenders waxay tiri waa sidee weerarkaasi wuxuu dhacay 100 sano ka hor. Ma Airbenderskii waa la dilay Waterbenders badankooda sidoo kale. Katara ayaa tii keliya biyaha xukumi karta. Markay la hadlay Aang waxay ogaadeen inuu yahay Avatar-ka, xitaa wuxuu ugu yeeray xayawaankiisii si uu u yimaado. Wuxuu joogay maalmo halkaas wuxuuna saaxiib la noqday Katara. Katara weli ma aysan barin sida loo xukumo biyaha. Aang ayaa baraya sida loo xakameeyo nafta iyo dareenka si ay u bartaan Waterbending. Dhanka kale, Prince Zuko adeerkiisii ayaa aaminsan Aang u qabtaan, wuxuuna dadkii deegaanka ku yiri soo dhiiba Aang. Laakiin walaalkii Katara ayaa tartan dagaal la galay Zuko si uu u badbaadiyo Aang. Zuko waxaa Firebender tababaran, halka nin kale uu ahaa qof caadi oo si sahlan u jebiyay. Kahor intuusan dilin wiilkaasi, Aang ayaa isdhiibay oo la socday. Aang xilligaasi wuu xirnaa, laakiin isagoo isticmaalay awooddiisii hawada, wuxuuna xaday furayaasha, wuxuuna qiyaamay dhammaan askartii, wuxuuna ka baxay markabka isagoo booqday markabka Zuko. Wuxuu halkaasi ka helay buug ku saabsan Avatar-ga uu lahaa Zuko. Markuu buuggii qaatay wuu u duulay. Zuko ayaa arkay markuu baxay, wuxuuna ku weeraray dab, laakiin kahor intuusan biyaha ku dhicin Katara iyo walaalkeedii ayaa ka soo gaaray oo badbaadiyay. Markaas waxay u duuleen macbadka Airbenders, halkaasuu Aang arkay lafaha macalinkiisa, wuxuuna murugooday, wuxuuna caro darteedii ku kacday awoodda Avatar-ga si buuxda. Markuu xooggiisii xakamay wuxuu bilaabay oohin. Katara ayaa nin siinaysa Aang wuxuu yidhi aniga ayaa sabab u ah dhammaan wuxuu dhacay 100 sano ka hor, laakiin hadda qaladkii hore ma dhici doono. Markaasuu bilaabay inuu si dhab u barto tababarka Avatar. Buuggii Zuko wuxuu ogaaday inuu u baahan yahay inuu kiciyo dhammaan awoodihiisii Avatar-kiisa hore. Markaasay u safreen macbadka Avatar-ka kuwaasi
oo ku yaala jasiirad, laakiin dadkii deegaanka waxay doonayeen inay qabtaan, laakiin natiinkiya ka soo baxay taalada quwaas oo ku dhacday Aang. Dadkii jasiiradii waa ay yaabeen waxayna u kaxeeyeen hogaamiyahooda, waxayna u sheegtay Aang saaxiibadiisii inaysan lahayn awood bandar ah, sidaas darteedna aysan doonaynin marti. Aang wuxuu yiri waxaan doonayaa inaan wax ka barto quwaasi, anigu waxaana Father. Markay taasi maqleen way aqbaleen. Habeenkii Suugiya u misigo raacay, wuxuuna yiri waxaan halkan u nimid inaan qabano dambiile. Subaxdii Aang u laabtay taaladii quwaasi, markuu iftiinkii ku dhacay wuxuu kala duunka ruuxda, wuxuu la kulmay quwaasi. Father u sheegay duunka sidaas ka dhacay sababta tababarka Father lama dhameynin. Hadda hadduu uusan tababar ka dhammaan deegaanka Waterbenders waa la baabi'in doonaa. Quwaasi waxay u muuqatay waxayna ku tiri tababarka keligaaga sameey, dadka kale waa daciifnimo. Kadib waxay isticmaashay awoodeeda, waxayna la weerartay jidka Aang si ay u badbaadiso dadka. Waxay ogaatay in Firebenders ay weerareen dadkii. Kataro waxay la dagaalamaysaa Zuko balse ma aysan ku guuleysan. Quwaasi waxay adeegsatay afarteeda awoodood, waxayna eryeen dhammaan Firebenders. Markaasi kadib quwaasi waxay jidka ka baxday, Aang wuu soo kacay. Dadkii deegaankii aad ugu mahadceliyay. Dibna Aang saaxiibadiisii waxay u safreen dhulka Waterbenders si halkaas ugu sii wato tababarkiisii Fighter. Quwaasi waxay u sheegtay Aang in deegaanka Waterbenders la weerari doono, sidaas darteed Aang wuxuu bilaabay inuu barto Waterbending si uu deegaankaasi u badbaadiyo. Kadib kurdaradii quwaasi jasiiradda, Zuko wuxuu la kulmay ciidankiisii ku cudur daaranay inaysan taageerin. Mid ka mid ayaa ku yiri Zuko haddii aad nala wadaagay inaad la kulantay Father taageeri lahayn. Zuko wuxuu ku yiri adiga waa ogtahay laakiin qof kale u sheegin. Laakiin ninkaasi wuxuu u sheegay aabbaha Zuko oo boqorka Firebenders. Markuu uu maqlo warkan wuxuu u sheegay gabadhiisii in Zuko hadda noqdo qof awood leh oo hela Fighter. Laakiin gabadha Zuko ma faraxin sababta iyada waxay rabtay inay noqoto boqorada Firebenders, waxayna doonaysay in Zuko ka awood badnaato. Markii Aang duulay isagoo u socdo dhulka Waterbenders, wuxuu arkay wiil hawada ku duulaya, wuxuu raacay wiilkaasi, wuxuuna gaaray magaalo ay degan yihiin Airbenders kuwa dhulka iyo dhagaxaanta xukuma. Aang wuu markuu in wiilkii duulay uusan ahayn Airbenders balse uu wiil Saynisyahn u adeegsaday qalabka lagu duulaa. Waxay sidoo kale la kulmeen Saynisyahnkii u sheegay Firebenders inay sameynayaan qarax badan. Saynisyahnkii wuxuuna u sheegay in isagu sameeyo hub badan si uu dadkaasi u difaaco, sidoo kale boqorkii u sameeyay hub. Wiilkii Saynisyahanka ayaa Aang ku yiri adiga waxaad tahay Airbender, waxaa naga caawin kartaa. Dhanka kale Firebenders waxay maqleen in wiil duulayo lagu arkay magaalada Earthbenders, waxay yiraahdeen waa inuu yahay Earthbenders. Prince Zuko adeerkiisii ayaa go'aansaday inay tagaan magaalada Earthbenders. magaaladaasi Kataro waxay ogaatay wiil u basaasay Firebenders. Marka ay raacday sigii iyada ay wiiliso saaxiibkeeda, way ku dhaceen dhabanka Firebenders ayaa ku weeraray, laakiin sadaqsi iyada saaxiibkeedii ku raaceen. Wiilkii Kataro wuxuu la shaqeynayay Saynisyahankiisii u dhisaan balon hawada duula. Aang wuxuu ogeyn Firebenders isticmaalin dabkooda balse adeegsanayaan kiimika kaar ay ka sameynayaan qaraxo. Waxaa la ogaa in qof magaalada uu Firebenders caawinayo, wiil la yiraahdo Ann oo ka tirsanaa weerarkaasi. Aang magacuu u sheegay Kataro waxay garatay, waxayna la dagaalatay Firebenders isigoo la jira. Waxay wiilkii u aragtay qof fiican, laakiin markay dib ula hadashay wuxuu u sheegay qorshahoodii in qalabka Saynisyahanka u geeyaan boqorka una bedelaan bam si uu dhinto. Kataro way naxday markay maqashay qorshaha wiilka ay aaminsaneyd, kaasi Aang la aadisay u badbaadiyaan boqorka. halkaasi ku dhamaanaysa xalqadeennii koowaad taxanaheena. waxaan aad iyo aad iskugu diri doonaa inaan soo khulaasin qaybteennii labaad. adigna saaxiib muuqaalka noola garay aad iyo aad baa u mahadsan tahay.